kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiiba meel kastaad ku sugantihiin halkani waa baadi sooc media 16 bishii 9 sanada 2020 qodobada warkeena ugu door korona waxaa kamid ah taliyaha howlgallada Mareykanka oo Afrika oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya laga soo masaafrinaya Mareykanka iyo hay'adda Islaamka oo shir saxaafadeed qabatay Mareykanka oo Kenya ka dalbaday inay duqeymo ka dhan al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha dalkooda gudoomiye Mursal Laftagareen iyo Waaro ka wada hadlaya shirka maalintii afraad ka socda Muqdisho hogaamiyayaasha maamul goboleedyada ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo siyaasadeed ka sameynaya magaalada Muqdisho kuwaas oo laga hadlayo arrimaha doorashooyinka madaxweynayaasha Hirshabelle Koonfur Galbeed ayaa la kulmay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ay ka wada hadlayeen dhalka shirkii maalinta afraad ka socda magaalada Muqdisho Waare iyo Laftagareen iyo Mursal ayaa sidoo kale waxa ay kulankooda ku soo hadal qaadeen horumarka labada maamul ay sameeyeen tan iyo markii la magacaabay si lamida madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland, Galmudug ayaa dhankooda kulamo noocan oo kala ka qaaday dhanka siyaasadda maalintii afraad iyo Muqdisho waxaa ka socda shirkii looga tashanayo doorashooyinka kaas oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay qabteen ruuxii 12 oo ku lug leh kiiska marxumed Xamdi taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay qabteen ruuxii ku eedeysnaa kiiska kufsiga iyo dilka ah ee loo geystay marxumed Xamdi General Sakiya Xuseen taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa tiri sida ciidanka booliska Galmudug ayaa xalay xilli dambe howlgal ay ku fuliyeen magaalada Cadaada ku soo qabtay eedeysana Maxamed Ibrahim Cismaan oo 24 jir ah ku dhashay Muqdisho looguna tuhmayay inuu ku lug leeyahay kiiska marxumed Xamdi Maxamed Faarax ka nabaxsaday magaalada Xamar falka kadib 12 bishan ayay ahayd markii Xamdi Maxamed Faarax oo 19 jir ahayd lagu kufsaday kadibna dabaq laga soo tuuray xaafadda Maajo oo ka tirsan degmada Waabari ee caasimadda Muqdisho ciidamada ammaanka ayaa hore u sheegay inay hayaan 12 qof isla markaana kiiskan ku eedeysan waxaana lagu wadaa in la sii ballaariyo baaritaanka kadib markii uu kiisku gaaray golaha shacabka gaarayay ilaa 100 qof ayaa dambiye kala duwan ka galay dalkan Mareykanka qaar loo diiday la aqoonsaday inay dalkan ka heleen deganaanshaha ama qaxoontinimo ayaa maalmahan soo socda lagu wadaa in laga masaafriyo xabsiyada ku yaala gobolada kala duwan ee dalkan qareenka u doodaya dadkan ay dadaal fara badan galiyay sidii loo badbaadin lahayn xilligan adag ee adduunka uu saameeyay COVID-19 dadkan la geeyay Soomaaliya ee qoysaska dadka xiran u sheegay in jir loo jiro lana qaadi doono maalmaha Khamiista ee Jimcaha toddobaadkan xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa toddobaadkan horaantiisii warqad ay kaga hadlayso inaysan munaasib ahayn qaadista xilligan dadkan ka soo saartay xafiiskeeda hay'adda Islaamiga ee xafiiskeeda Minnesota mas'uulka ugu sareeya Jeelaani Maxamed Xuseen ayaa hore u sheegay in dhawaan la xiriireen dowladda Soomaaliya iyagoo weydiistay inay kala shaqeeyaan hor istaaga sidii dadkan aan loo soo masaafrin lahayn xilligan adag iyagoo dalkan Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee dadkiisu ay qabaan xanuunka COVID-19 ayaa hay'adda Islaamiga ayaa shalay galab shir jaraa'id ay kaga soo horjeedo ku qabatay xafiiskeeda magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota taliska militariga Mareykanka ee Afrika ayaa culayska saaraya si ay u fuliyaan weerarada diyaaradda aan duuliyaha lahayn ee droniska oo lala beegsanayo dagaalamayaasha al-shabaab qayb ka mid ah bariga Kenya afhayeenka guud ee taliska Mareykanka ayaa sheegay inay garwaaqsan yihiin baahida loo qabo cadaadiska caalamiga oo joogto ah la saaro al-shabaab iyo in la socdo dhaqdhaqaaqooda joogitaankooda iyo in si firfircoon loola dagaalamo si looga hortago faafitaankooda saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Kenya ay ogolaatay in duqeymaha lagu fin karo aaga u dhaxeeya Garissa iyo Lamu oo isku xira saldhigga ciidamada cirka Maantabay iyo gobolka xadka la leh Soomaaliya bishii February ee sanadkan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo booqasho ku tagay aqalka cad waxa uu ka codsaday madaxweyne Trump in laga caawiyo la dagaalanka argagixisada oo ay ka mid tahay taageero dhanka cirka